aryaadaha xabadhe ma ogidin baarlamaanku waa furmi rabaa la yiri mooshinka laga wangaabiyay war majaababkiiba faaruqay war baarlamaanku wuxuu ka shaqeeyaa shuruucda dalka iyo dadka soo maaha war wadanka in xaalad degdeg lagu soo rogo dadka dagaalka shabaab loo jeeyaa la sugayay ma hadda baarlamaan iyo buuqiisi la bilaabay war adeega degdegay Axmed oo waxa laga yaabaa madaxweynuhu inuu yiraahdo kalfadhiga baarlamaanka waa noo furan yahay waana noo xiran yahay aan dagaalkii aadno wareedha haddaan baarlamaanka iyo shaqadiisa buuq u aragno soo kacaankii mar labaad u noqon maaha aryaadaha hadda ka hor berigi baarlamaanka shaqadiisa loo day waayo walee lama dhihin ma konton sano kadiban kacaankii koobiyey rabna ma konton sano kadiban kacaankii koobiyey rabna war Cabdullaah baarlamaankan cid shaqadiisa ku haysata ma jirtee dalku xaalad dagaal oo ku jira waxaana muhiim ah in 330 xildhibaan ee labada aqal inta loo qaybiyo qori iyo rasaas furimaha dagaalka tagaan sababtoo ah nin qabow ku jira ma ogaa kara xaaladda dalka ka jirtee kuleylka arkaan oo wadanka ha xureeyaan war kalamaan laftirkeedaan baarlamaan caraysan ka buuq yarayne qoryaha iyo rasaasta ma inta loo qaybsho furimaha dagaalka loo diro warta anigu waan yaabaye kalfadhiga kalamaan ma xidhma miya war qamiista la xidhaa sabtidana waa la furaadaan la socon war adiga laftaadan warka hayne kalfadhiga kalamaan bisha shacbaan waa la xidhaa bisha shawaalna waa la furaa war kalfadhiyada kalamaan mooshinadii waxa saasanaayay la horkeena waxa kamid ahay boobaya wadani war abdi ku soo ma lagu soo wacay war mooshinkii madaxoogii baad ilowday midka xasaasisan ma jirin war waxaad kala ilowdeen mooshinkii ahaa qaarash laga maarme waxaan aadayaa qadar aryaadaha idinkoon istaalin ma waan hore loo dhihin kaftaanka kooxda kalamaan kumaan kuno qofa kore kaftanka kooxda kalamaan kumaan kuno qofa kore Cabdullaah waxaan kala ka maqli jiray kulmiya kulama jirtee ka leexo kamaana jirtee wargooyin ra'iisul wasaare Xamse Cabdiyaar oo hariga ka jaray xarunta hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliyeed wuxuu yiri sanad gudihii laba guul baan u dabaaldegi doonaa insha Allah oo maxay kala yihiin dan iyo qaran miya Soomaaliya heshiisa dunida la heshiisa miya horta Soomaaliya heshiisa Soomaaliya ma ku jirta Soomaaliya heshiisa haamata dagaalamaha ayaan ka jaraana oy Soomaali ma ahayno warwarka wadiga dhaxgasheen ra'iisul wasaare Xamse Cabdiyaar wuxuu yiri midda koobaad shabaab waa soo afjaraynaa marka labaad dayn cafintana waa soo gabagabaynaynaa hadda labada guulood loo diyaar garooba dabaaldegooda war taliyihii hore hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliyeed Korneyl Maxamed Aadan Koofi oo xarunta ay dhismaheeda ka hadlay war tacabkiisa ma lagu abaal mariyay war saw hal lagu abaal mariyay ma yiri horta warwarka anaga dhaxgalinay Koofi wuxuu yiri dawladahana taageera xarumahooda jinsiyadaha waan tagay intii aan xarunta dhismaheeda waday sidana uma dhisna oo uma qurux badna laakiin waxay ku dadaaleen dadkooda inay dhisaan maskaxdooda iyo aqoontooda annagana waxaana looga baahan yahay intaan darbiyada qurxin lahayn garaadka bulshadeena inaan dhisno kor u qaadno way arag wax loo mashaaga weel boxon wax ma lagu shubto masiiri wekaamicnuhu aryaadaha samigay Cabdullaahna waxa uu yiri jawi qaldan ya jawr falya waxaan jirin u jeedmiya jawi qaldan ya jawr falya waxaan jirin u jeedmiya wararta Koofi markii xarunta socdaalka iyo jinsiyadda laga qaaday yaa lagu bedelay yaa ogay roobla weydii war Allah u naxariistay abwaan Maxamed Gacal Xaaye wuxuu hore u yiri qaran iyo qof iyo qoys waxaan qabaa qabiya u taal gabooso madaxweyne Xasan Sheekhow ahay ninkii yiri qabya ninkeera dhameystira iga wallo mid shabaab ku hayaan arkaayo qabyadii uu dhameystirayaa Xasan war ma haysiine dawladda Mareykanka oo amiirada shabaabkan ugu badan 5 milyan madaxa ka saari jirtay dariga beesadii waa la laabtay saddex qof oo ugu horeyso lacagta loo badiyana min 10 milyan madaxa laga saaray hoga ma lacagta inaan saluugnay bay mooday war hadaan lacagta la saluugin waa la soo sheegi lahay ee ninka shabaab madaxda oo Axmed Diiriye ma karataa in la yiraahdo ayaantan ku xigeen uu yahay la dhahayay iyo nin magaciisa jihad lagu koobay aan u malaynayo kullayba ajnabiga muslimiinta ku jihaaday inuu yahay saddex nin kamid ah ninka xog ka keenana 10 milyan waa banaanka la yiri ka saddexdaba soo sheegana soo sodan heli maayo war xataa dhaqaalahooda meeshu yeelo qofkii sheega waa la siinayaa yiri war nimankaas meeshay joogan waa lagu yaqaan lacagta hal la isiiyo waa kuwa jubada dhexe jooge hadii laga waayana xarar dheere iyo ceeldheer iyo ceelbuur inta u dhaxaysa laga baaro war goornaan ka walaw guri uun ku qaadine nimanku lambar laga wiciyo meel laga xiriirmayna soo qorin war lacagta aniga helayo haddaan wacayaa wariye Jamaal Cusmaan isaga og meeshay joogaan
weeyaanoo soo waraystee war weligay waxaan maqli jiray wol bangi oo dhahaya business opportunities Soomaaliya ka abuuraynaa hadda si sax ah Mareykanka uu abuuray fursado ganacsi war 10 milyan Mareykanku meel loogu hagaagay iyo qofka laga doonayo nooma sheegine 10 kun oo cali jaytaan la yaqaan war nimanku Mareykan dhib kuma hayaan inaga dhibaato inagu hayaan si aan la fahanno uga badbaadsano man anagu iska qabanno war Mareykanku wuxuu ogaaday Soomaalidu inay lacagta jeceshahay war siyaasadda adduunka ma fahmi kartiin Mareykanku wuxuu rabaa mashruuc beereed oo laga sameeyo Jubbada Dhexe inuu maal geliyo mustaqbalka war ma dhibad ku qabtaa adigu haddii la maal geliyo wargooyin war ma haysaane qaraxii ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga durba cidii ka dambeysay waa ay soo heleen annaguna ilaa iyo hadda qaraxyadii Soomaaliya hal qof oo loo soo qabtay ma leh iyo cid tilaabo laga qaaday toona war coday ka dhacday dalka Nigeria waxa lagu ogaaday ragga Afrika inay ugu fiican yihiin ugu naxariis badan yihiin xagga dumarka ragga Soomaaliyeed laakiin dumarkeenu waxay ka dhigi doonaan ma aqaan war haddaad aragtid musharaxiin xil doorayso tartamaysa kala doortaay markasta kan ugu fiican maaha war aan kalow goormaad afayeenka haweenka isku bedeshay war jagadaasi way banaanay war ma banaano ana qaatay war wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka Farhan Goraday war intaas oo dhan waxa ka daran Turkiga wuxuu diiday taasi uga timid Mareykanka waxaana la soo bandhigay gabadhii qaraxa ka dambeysay iyadoo gashay fanaanada ku qoran tahay New York markii iska fahmay war ma New York la iga soo diray ka wada war New York inta fanaanad ku soo qorata miyay tiri qaraxan rabbi ugu dhawaanaya war nihaw haday dhihi lahayd shiinaha la weeday lahay war nimayo horta qamadiga Ukraine noo soo dhiibtay mana soo gaaray war Ukraine horta annagu inaan ciidan u dirno Soomaha unu ka batayna haystay maxaan direena war Soomaali batari haano leeraa meelka dagaalama leeri war hadda Soomaalidii batari la umiyay sheegayaan war ruushkii wuxuu yiri qamadiga waa joojinaya hadaan badeecooyinkayga la fasaxin bas marka waa inaan tilaabo ka qaadnaa war nimiyow madaxweynaha kuuridu waa qooy joom qiinjaan jalow jaaw lanki leeray wali baare dadkay baalga mundu meeliyo kaga raabadana ma haysadan haan koonfurta kuuriin hiraab wali bishaqin isku bahayaan anina hagantara kunu saki meel biyo madaga ka dhiiban war Japan iyo Mareykanku waxay dhaheen koonfurta kuuriyaan la safanay gantaalaha ma ka celin karaan de war kalamaanay Soomaaliland baan rabaa inaan la hadle mar haddaan dulmiga laga baxayn duugsiga iyo boobka tawxiid calanka dooga maxaa loogu daabacayay reernimo haddaan laga durkayn maamul lagu doono dawladnimo maxaa loo dhisto madaxda loo doortay mar haddaan dastuurka iyo sharciga loo dabaqahaynin maxaan dunida ugu sheegaynaa dee dal baan nahayda ma dadkaan dadkii shalay ahayn loo dagaalamayay maxay danabadeenni u geen iilka lagu duugay mar haddaad dariiqii marteen awgii lagu diiday maxaan ina siyaad ugu dudaa waad ka darantiini aryaga booso waa taad dhihi jirtay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa xaytaa beriga maay haddana kaa gaarta war Cabdulla waxaan kaloo ka maqli jiray midnima dhimatay ku sii dhagan yihiin dhagaha ugu rida inaanay dhacayn now war kalgacalo war ma hayside heestan taageerayaasha musabixi way bedeleen haye midnimadaada mayalka waadkee miyay ku bedeleen adeer weli midnimo lama soo hadal qaadina waxaa lagu bedelay doorasho dhimatay ku sii dhagan yihiin dhagaha ugu rida inaanay dhacayn qalalaasa dagaalba oo qildayaya qiimihii nolosha la qasaarinaya qalad lagu saxaya war dagaalka qawaarijta waxa qaal uu yiri war waxa kale hore loo yiri haruu buuxa waa lagu dhiftaa kaaga haafka ah wali kale leeray lan war hayso hanga laga darade war waxa la yiri shantaadu nimanka reebin sharci kama reebo hore waxa loo yiri mundul dhisa ma ganaxayo war hore waxa loo yiri hareeraha adduunka dabba kulcaya habaaska dalumay ragba isku haysta habeeniyo maalin